هاتنا دالك كونفور أفريقيا ugaas maxamed ugaas axmed ayaa kulan gaar ah la qaatay jaaliyadda beesha sida ee koonfur afrika oo baaq wadajir ah ka soo saaray xaaladda isugu jirta abaaraha iyo xayiraadaha ee saaran gobolka Gado ee koonfurta dalka Soomaaliya. Mahad Maxamed Sheekh ayaa warkaasi South Africa inooga soo diray. kulankan gaarka ah ee ay kula yeesheen magaalada Johannesburg qaybaha kala duwan ee jaaliyadda beesha sida ee koonfur Afrika ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ayaa baaq wadajir ah oo ay ka soo saareen walaac kaga muujiyay xaaladaha iskugu jira abaaraha iyo xayiraadaha saaran garoomada diyaaradaha ee gobolka Gado iyagoo ka codsaday bulshada iyo jaaliyadaha ka soo jeeday inay si wadajir ah ugu gurmadaan abaaraha kana shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa caqabadaha siyaasadda ee deegaanka. halkan waxa isugu yimid oo lagu soo dhaweynayaa ogaasyada Soomaaliyeed kamid ah ogaas maxamed ogaas axmed ogaas faarax غني من التعريف inna ummadii Soomaaliyeed iyo ummadda sadaba waxaan doonaynaa inaad u noqoto hormuud bari ka maalin xaga oo ku haga ummadda Soomaaliyeed aqoonsha Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed aad la kaashato oo Soomaaliya midnimo u raadiso oo iskaashi u raadiso. gudoomiyaha jaaliyadda beesha sida ee koonfur Afrika mudane aadan niinile oo ka hadlay kulankan ay la yeesheen ugaas maxamed ugaas axmed ayaa sheegay in jaaliyaddu si weyn uga damqanayso duruufaha ka jira gobolka Gado wuxuuna dawladda Soomaaliya iyo kan maamulka Jubbaland ugu baaqay inay mudnaan siiyaan xal u helidda caqabadaha jira si loo fududeeyo gurmadka abaaraha iyo isu socodka deegaanka. waxaan rabaa inaan ka hadlo gobolka nagi Gado garoomadiisa way xiran yihiin waxaan baaq u direynaa dawladda in ay garoomada gobolka naga u furaan. waxaan kaloo baaq u direynaa Soomaali meel kasta ay joogto in arintaas laga dhiidiyo. waxaan leenahay siyaasiyiin waxaan leenahay baarlamaan qolo kasta oo ay khusayso in aan gabdhaha nagi markii ay dhamcaan in isbitaal loo qaado garoon laga dhoofiyo la waayo waa arin laga xun yahay. waxaan kaloo baaq u dirayaa saad ogtihiinbo wadanka nagi waxaa ka jira abaaro ba'an oo dadkii iyo ummadii oo dhan ay ku dhamaanayaan. xoolihii baa dhammaaday haddana dadkii baa xaaladooda khatar ku jirta. waxaan baaq u dirayaa dalkan South Africa iyo dhammaan dunida meeshan ka joogno in aan ka qayb qaadano. ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax oo ka hadlay kulanka gaarka ah ee beesha sida uu kula qaatay magaalada Johannesburg ayaa sheegay inuu walaac ka qabo culayska ay abaaruhu ku hayaan dadka reer Gado iyo garoomada diyaaradaha ee xiran. ugaaska ayaa ku booriyay bulshada deegaanka inay mideeyaan dadaalkooda oo ay ka tashadaan aayahooda isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee abaaraha iyo colaadaha. reer sida markii la yiraahdo waa ummad ama waxaan oran karnaa dad deegaamo fara badan degan weeye ka siyaasad ahaan iyo ka dhaqan ahaan runtii wax badan baa ka qaldan. arrimahaas laftigeeda sidaynu uga tashan lahayn oo talooyinkeena u badsan lahayn inaynu shirar qabsanno la iskugu yimaado deegaamadii aynaan keliya annaan fiirsan waxa dalka ka socdee deegaamadeenna waa inaynu u tashannaa oo taladaas aynu isugu imaannaa haddii lahayn. arrimaha kale oo runtii saamaynta nagu yeelatay waxaa weeye gobolka Gado waad la socotaan mar kastaba abaaraha ay dhacaan dadka ugu dhibaatada badan oo ugu caqabada badan bay ka mid yihiin. arrimahaas haddaan laga tashan oo talooyin laga yeelan haddii waxaad ogaataan inaad bini'aadanka dadka inaan wax weydiisano waxaa ka muhiimsan inaynu ka hortagno waxyaabaha nagu imaan karo kale. gabagabadii kulankan ee jaaliyadda sida kula qaateen magaalada Johannesburg ugaaska guud ee beesha ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ayaa ku soo dhamaaday jawi is afgarad iyo rajo leh iyadoo ay jaaliyaddu muujisay midnimo iyo diyaar garow ay ku taageerayso gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan abaaraha ka jira Soomaaliya. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.